wafdi ballaaran oo isugu jira wasiirro ka tirsan xukuumadda Soomaaliland iyo saraakiil ka socota sanduuqa horumarinta dhaqaalaha ee Soomaaliland ayaa u socdaalay magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil sida warbixinta warkan uu ku eegayo wariyayga Saadiq Carab. wafdi ballaaran oo isugu jira wasiirro iyo saraakiil sare ka socda sanduuqa horumarinta dhaqaalaha Soomaaliland ayaa maanta socdaal ku yimid xarunta gobolka Saaxil ee magaalada Berbera. wafdigan uu horkacaya wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire ayaa markay soo gaadheen magaalada Berbera waxay kulan la qaateen maayarka degmada Berbera iyo borosaafka gobolka Saaxil. kulankaas oo ka dhacay xarunta dowladda hoose ee magaalada Berbera ayaa ahaa mid horumarineed oo lagu kala saxeexday heshiis lagu bilaabi lahaa mashruuca biyo ballaarinta magaalada Berbera kaasoo maalgelinaysa sanduuqa dhaqaalaha Soomaaliland ee SDF. ugu horreyn kulankan ayaa waxaa ka hadlay maayarka degmada Berbera mudane Cabdishakuur Maxamed Xasan Ciidi iyo borosaafka gobolka Saaxil mudane Fahmi Cabdi Bidaar waxaana hadaladoodii ka mid ah qaabkii shaqee ay loogu talagalay SDF inuu shaqeynayo iyo inaanu shaqeynayn ayay kormeer ugu socdaan. marka waan kusoo dhaweynaa saacadda فوشان كوسينيا أفرتي مشروع سلا SDF أيوة كودي كوركا أفرتي ويمك عم تعالوا هيا وسيمر بدون كان قال له إنت قال بلد كوسوي إن شاء الله تعالى سيمجر جدًا كوكرة دكتور بيهم سيمر نوسي أرنو عن رجال يعني وقت بقولنا قد لا هذا كل بيال أكتر معنا فهمتي لا قدر وقتي يوم بس كده مركب واحد جعله بعدين اللي تقدروها وأنتي تامكين نقلنا كفر كرايو بعد وقتي أنه ما يدانو على الرين تاجنا يمكن الله هو يجي وحمل مغلية شركة وجدت وحمل كسول شيء لها وهو دمبي يلا هو وضم مقالة كنا واحد يدو إمكوا أجل سيان هربون يعني رسول sidoo kale waxa iyagana kulankan ka hadlay wasiirka qorsheynta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire iyo wasiir dawlayaasha biyaha iyo maaliyadda kuwaas oo ku dheeraaday muhiimadda kulankan uu leeyahay Berbera iyo in laga fuliyo mashruuc horumarineed oo ugu horeeyo mashruuca biyo ballaarinta Berbera waxaana hadaladoodii ka mid ahaa ujeedada socdaalka wuxuu ahaa laba koow inaanu qabyatiro heshiis saddex geesood way wada gelayaan وزارة البيئة وكالة البيئة بالبلد هي وزارة البيئة يدي دولة هوس هذا الجريان لبا إن نخرج من الروم مشاريع ذكلاء اللي جمع الجريء مشروع SDF قيب تهراء الحمد لله هي ونفذ ذي حنرد سجارة وما درينيها قدوميها يمايك يماريها كانت كقاتين رنكاس ونفذ heshiis kasta go'soodka waa la saxaxay isku marnaaday heshiiskaas waa heshiis muhiim ah waayo waxay naga xiran horumarka biyaha magaalada Berbera ayaa naga xiran ka wixii hadda ka dambeeya kaasiin ku hawlgalayna sharaf weyn oo inaan maanta goobjoog ka ahaan heshiiska saddex go'soodka ee degmada iyo wakaaladda iyo wasaaradda biyaha maanta dhamaaday la isku gacan qaaday runtii ilaahay baan la kaashanay aniga wasiirka iyo inteedii wada socotayba inaan ku sameeyno mashaariicda SDF gaar ahaan guud ahaan gaar ahaan biyaha oo runtii maxaan ku yiraahdaa mashruuc reer Berbera maxaan ku yiraahdaa gobolka Saaxil baahi weyn runtii u qabaan markii laga hadlayo biyaha إلهي إذا كيسوان وانتبه دونا محن كل هذا مالها شقة محن كل هذا أنت كسرته وحن رأينا هذا حقيقي عدايو إن ما أنت محن كل هذا عنه وزارة خيرات كبيرة يدمدا يوكالة بيها بربرينا حكم كوجارنا يسفهم مهشيس سيدي كانت السؤال المهشيس وضع شقينات si kastaba ahaatee heshiiskan lagu hirgelinayo mashruuca biyo ballaarinta magaalada Berbera ayaa ku soo beegmaya xilli shacabka ku nool magaalada ay ka cabanayaan biyo la'aan baasana soo food saartay qaar ka tirsan xaafadaha magaalada Berbera. Carab Saleebaan, Jimishka Caalamiga SBC magaalada Berbera.